saddex maalmood kadib. dhanka kalena qareenka u doodaya ciyaaryahanka dalka Boortaqiiska ee Cristiano Ronaldo ayaa markii koobaad war-saxaafadeed ka soo saaray dacwadda kufsiga ah ee loo haysto ninka uu difaacayo. waxa uuna ka hadlay sida dacwaddan ay ku soo bilaabatay, heshiisyadii la gaaray, waxa keenay in uu dhaco heshiiska labada dhinac 2010 iyo sidoo kale sheekooyin kale oo ku saabsan dukumentiyo uu sheegay in la jabsaday oo la xaday. Peter Christensen oo ah qareenka u doodaya Ronaldo ayaa sheegtay in wargeyska ka soo baxa dalka Jarmalka ee la yiraahdo Der Spiegel uu soo bandhigay dukumentiyo been abuur ah isla markaana aan sal iyo raad lahayn, ayna ogaadeen in ay jiraan dad si gooni ah weerar uga ah xirfadda xidiga dalka Boortaqiiska ee Cristiano Ronaldo. qareenka ayaa war-saxaafadeedkiisa ku sheegay in aysan inkiri doonin in uu dhacay heshiis dhex maray 2010 Cristiano Ronaldo iyo Catherine Mayorga. heshiiskaasna micno ahaan aysan ahayn ayuu yidhi in uu qirsan yahay dembiga loo haysto, balse uu galay markii uu la tashiyo la sameeyey la taliyayaashiisa iyo sidoo kale qareennadiisa si aan wax loo yeelin sharafta xidigan oo markaa heshiis la galay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. sidoo kale qareenka Ronaldo ayaa sheegay in dukumentiyada lagu daabacay warbaahinta ee uu ku jiro magaca Master Ronaldo ay calaamad u tahay wixii dhacay sanadkii 2015 markaas oo la dhacay ama la jabsaday sir badan oo ku jirtay kombiyuutarro qaaradda Yurub yaalay iyo kuwa qaaradda Ameerika yaalay, kuwaas oo ay lahaayeen dad gaar ah iyo sidoo kale dawlado. dukumentiyadaas oo aan aragnay ayuu yidhi qareenka u doodaya Cristiano Ronaldo, iyaga oo la daabacay sidoodii loo daabacay ay u qornaayeen iyo iyadoo la daabacay iyadoo wax laga bedelay. dukumentiyada la soo bandhigayna kuwaas ayay la mid yihiin ayuu yidhi Peter Christensen. waxaa kaloo jira in qareenka Ronaldo uu sheegay in magaca uu leeyahay iyo lacagta uu haysto ay qayb weyn ka tahay in la buunbuuniyo waxyaabo been abuur ah oo lagu sharaf dilayo xidigan, isaga oo si gooni ah weerar ugu qaaday warbaahinta iyo dad si gooni ah u isticmaala baraha bulshada. sida uu sheegay, waxaana si aad ah u doonaynaa ayuu yidhi in aynu soo celinno sharaftii ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo isla markaana aan bannaanka soo dhigno waxyaabaha been abuurka ah ee lacagaha lagu doonayo. Cristiano Ronaldo ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay bartanka kaga jiray xaalad jahwareer ah kadib markii gabar lagu magacaabo Catherine Mayorga oo u dhalatay dalka Mareykanka ay ku eedeysay in uu kufsaday sanadkii 2009 xilligaas oo ay ku sugnaayeen magaalada Las Vegas, balse Ronaldo ayaa markasta si kulul u beeniyay dacwadda loo haysto. sidoo kalena wargeyska ka soo baxa dalka Talyaaniga ee La Gazzetta dello Sport ayaa daabacay in Real Madrid ay ku lug leedahay arrintan, sababtuna ay tahay Real Madrid iyada ayaa ka dambeysay ayaa la yidhi 2010 in Cristiano Ronaldo uu heshiiskaasi la galo gabadha si aysan magaca iyo sawirada ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ee kooxda Real Madrid aysan dhibaato ugu imaanin, isla markaana shirkadaha dhanka xayeysiinta la galaya Real Madrid aysan ka bixin heshiisyada ay kula jiraan. sababtoo ah ilaa iyo 2010 muddo 9 sanadooda Real Madrid ayaa markasta xalinaysay ayaa la yidhi gabadhan si gooniyana xiriir ula lahayd. markii uu ka tegey ayay Real Madrid u fasaxday Catherine Mayorga inay dacwad ku soo ogto Cristiano Ronaldo, iyaga oo daayay waxyaabihii ay siin jireen iyo hadalladii ay la geli jireen gabadhan. wargeyska La Gazzetta ayaa sheegay inuu hayo cadeymo Real Madrid inay ku lug lahayd in heshiiska Cristiano Ronaldo uu la galo gabadhaasi uuna bixiyo lacagta oo ay Real Madrid siisay. waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli uu jiro tuun ku aadan waxa xilligan ku soo beegay dacwadda kufsiga ee loo haysto Cristiano Ronaldo. sidoo kalena hooyada dhashay xidigan ayaa dhowaan ka dhawaajisay in Real Madrid ay qayb weyn ka tahay dacwaddan iyo sharaf dhaca wiilkeeda loo geysanayo.